Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada summit.pro.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Waxaynu kusoo jirnay duruusteena imtixaanaheeda oon ku baranaynay hagaajinta fiidiyoyaasha ama video editing qaybta Sony Vegas. Darsigeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo isticmaalo LUT. LUT maxaa waaye? LUT horey baan usoo qaadanay, darsigii hore baan kusoo qaadanay oo color grading ka ahay. Qaabka loo sameeyana waan soo baranay. Darsigan marka waxaan ku qaadanaynaa qaabka loo isticmaalo LUT. Marka waa kalra diyaarsan ama kalra wax laga hagaajiyay, wax laga sameeyay. Kalradaas markaad kusoo daranaysid videogaada waa effect waxaad ku daranaysaa videogaada. So marka aan u guda galno sidoo kale tana qaybta hoose videoga ayaan idin dhigi doonaa, halkaas ayaad ka degsan doontiin. Lotus badan baa maxaa la yiraahdaa aan igu jira aan isticmaala, marka hoos baan idin wada dhigayaa. Sidoo kale tana Lotuskaas diyaarsan waxaad u isticmaali karaysaa Sony Vegas, Premiere Pro iyo DaVinci Resolve, intaba waad u isticmaali karaysaa. Aan u guda galno marka darsigeena maanta. Okay, marka qaybta marka project waxa ugu jiro videogan baa haysta. Videogana marka ku hagaajin doonaa ama aan isku la arki doonaa maxaa la yiraahdaa qaabka loo isticmaalo Lotuska. So marka waxa ugu horeeya marka aan sameynayno waxay tahay waxaan ku dhufanayaa calaamadan FX-ka, kadibna waxaan ka dooranayaa qaybtan ay ku qoran tahay Vegas LUT filter. Sidoo kale tana waa tagi karaysaa maxaa la yiraahdaa video effect-ga inta tagtid, kadibna LUT effect-ga aad ka soo daro LUT filter-ka aad ka soo daratid. So marka aniga inta ay fudud mar walbana intaan ka adeegsada ama intaan ka isticmaala. So marka LUT-kan ayaan adeegsan doonaa. Marka waa kana marka waxaan leeyahay add ayaan leeyahay, kadibna okay ayaan leeyahay. Kan marka oo jeeda qaab noocan marka uu soo baxay. Marka wuxuu leeyahay browse ayuu leeyahay, soo gali maxaa la yiraahdaa effect-gaada soo galayo markii leeyahay. Marka waxaan leeyahay browse ayaan leeyahay. Marka waxay ugu jiraan qaybtan desktop-ka, kadibna marka saddexdoodaba waxa ku jira Lotus aad iyo aad u fara badan oo tiro badan baa ku jira. Xajmigooda ama size-koodana ku dhawaad waa 2 GB iyo maxaa la yiraahdaa 7 MB waaye. So marka waan idin sii doonaa qaybta hoose aan idin dhiga halkaas ka degsada. Marka kan ugu horeeya marka ku dhufanaya qaybtan waxaan baraweynayaa page ay ku qoran tahay. Page-ka waa number 1 aan ka dooranaya, double click aan ku siinayaa. Waa ujeedaa qaab noocaas marka videogeena isku bedelay. Play haddaan dhaho waa ujeedaa waa qaab noocaas. Okay, ma xuma. Aan fiirinaynaa browser leenahay, page 2 ayaan ka dooranayaa. Page 2 ayadana waa qaab noocaas. Okay, marka kuwan dhan waa Lotus wada diyaarsan, ayaga dhan way wada habaysan yihiin. Waxa waa drag and drop waa videogaada markuu aad u baahan tahay inaad maxaa la yiraahdaa hagaajisid ama aad sameysid aad u baahan tahay leed kusoo wada jiidaysaa, waa soo gelinaysaa, waa drag and drop. Click browse aad ku siinaysaa, kadibna double click aad ku siinaysaa, automatically effect-gaas videogaada uu kusoo darmi doonaa. Okay, marka aad markuu u fudud yahay qaybta marka ka baxayna waxaan u gudbaynaa qaybtan kaleeto maxaa la yiraahdaa Pixity ay ku qoran tahay. Okay, ayadana qaab noocaas waaye. Dhammaan marka kuwan dhan waad wada baraaweyn karaysaa. Marka qaybta hoose marka idin dhigi doonaa insha Allah tacaala way wada diyaarsan yihiin. Sidoo kale tana waxaan u isticmaali doonaa casharada Premiere Pro-gana, waan u isticmaali doonaa Lotuskan qaar aan idin siiyay. Sidoo kale tana kuwa kale oo gooni lahaan doonaan insha Allah tacaala. Marka qaab noocaas loo isticmaalo LUT. Sidoo kale tana darsiga xiga waxaad ku qaadan doontaa qaabka loo isticmaalo preset jiro oo kalra diyaarsan oo maxaa la yiraahdaa preset jira. So marka ayaguna waan isla arki doonaa, waan isla baran doonaa insha Allah tacaala qaabkii oo shaqeeyaan. Waxaynu ballanaa darsiga xiga inta ku kulmi doono darsiga mid ka xiiso badan. Waxaa idin kaga tagayaa asaasiyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.